السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا يوتيوب channel كينا Somali Youth Scholars aniga rabin inaan ku sii dheeraanin hordhaca waxaan rabaa inaan hore aan ka guda galo mowduucina maanta oo ku saabsan sida aad u eegan lahayd natiijadii yani DV Lottery-ga 2024 markood waxa u baahan inay haysid confirmation number oo markii aad xareysanaysid DV Lottery-ga aad lagu siiyay so hadii aad sawir ka qaatay email ku qortay confirmation number kaas oo ku muhiim sidoo kale sanadkii aad dhalatay iyo magacaaga kan saddexaad u dambeeyay misal hadii lagu dhahay Ali Abdi Yusuf waxa u baahan tahay last name kaaga oo Yusuf so saddexdiisii u baahan tahay mid kood confirmation number confirmation ka iyo sanadkii aad dhalatay iyo last name ka magacaaga kan ugu dambeeyay saddexda magac kan u dambeeyay so waxa booqan doontaa website-ka lagu magacaabo DV Lottery waxa u baahan tahay website-kan ku qoran dvprogram.state.gov website-ka saxda waa website-kan insha Allah linkigan qaybta hoosan soo dhigi doona then waa ku dhufanaysaa linkigani kabacdi markaa ku dhufatid linkiga wuxuu ku keeni doonaa page sidaan then waxa ku dhufataa click the link below to check DV 2024 and DV 2003 entry status. Then meeshan ku dhufay ku qoran tahay check status. Then marka ku dhufatid meeshaas waxa sii dhahdaa continue. Yani meeshaas ku dhufo. Ka bacdi waxa u baahan tahay confirmation number ka ku sheegay inaad gelisid last name kaagi iyo sanadkii aad dhalatay. So aan buuxino. So tusaalahan hadda waa buuxiyay confirmation number-ka waa geliyay magacayga u dambeeyay waa geliyay sanadkii aad dhashay waan geliyay iyo meeshan authentication ay ku qoran tahay yani security number-kani KTBSD9 then waxa leedahay submit then marka submit ahdid dabcan waxa ku soo bixi doona natiijada hadii ay ku soo baxdo has not been selected yani nasiibka muusan in lagu doorto DV Lottery 2024 hadduu ku soo bixi lahay waxaani meeshan hasanad bi selected ay tahay wax ku dugan ay ku soo bixi lahay marka warqad oo dhinacan ay ugu sawiran tahay ay ku taalo xogtaadii safaaradii address-kaaga ku soo bixi lahay yani warqad ka dugan soo hadda yani aadan arkin wax noocan waxa waaye waa hambaliyo oo ku guuleysay laakiin hadii meesha warqada ku qoran tahay hasanad be selected waxa calafka muusaneyn marka dhamaantiina inta ku guuleysade iyo intaana wada helin dhamaantiina hambaliyo ku guuleysan Ilaahay fududeeyo so waxa waaye insha Allah waxaan rajayn doonaa kubi yani sidee u rabeen wax walba u noqdaan marka video inta ku dhameynaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh